qodobka ugu dambeeya ugu muhiimsan oo aan rabayna soo qaado oo ku saabsan muxuu ahaa iskaashiga iyo iskaalmeynta waa ciid dadkuna ilaahay isku awood ma wada siinin inta wax haysata waxa ay haystaan waxa ilaahay uu ku imtixaanay kamid yihiin kuwa aan wax haysanina wax haysasho la'aanta iyo wax la'aantu waxa lagu imtixaanay kamid yihiin laakiin waxa ilaahay uu jideeyay waxay tahay inaan iskaalmeyno kuweena wax haysto aan kaalmeyno kuwa gacantooda ay gaaban tahay ilmaheena marka ay farxayaan dhar ciideed ay wataan doorshada iyo buskudka iyo maxaan ku iraahdaa macmacaanka ay cunayaan walaalaha Soomaaliyeed ilmaha Soomaaliyeed ee aan fursadaas aan haysanin aan la wadaagno waa maalin iyo labo farxadu iyo maalmo kooban caruurtu ay farxayaan oo ay ciyaarayaan oo ay waxaysmayaan ha laga wada farxiyo caruurta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto diriskaaga ogaaw gurigaaga dhaxdiisa in laga faraxsanaado guriga kugu xigo kugu dhagana u dansanaado ama intii diintu dilmaantay diriska ahay ee 40 qoys iyo agaarkaaga ahay lamida walaalayaal arintaas si gaar oo hoos aad iyo aad ayaan u adkaynayaa u dib istaagayaa ciidda la joogo farxadda ciidda aan wada gaarsiino caruurta aan ka wada farxino waayeelka aan ka farxino inta gacantoodu gaaban tahay oo la yaabo maalinta ciidda inaan gurigooda dab laga shidayn dabka ha loo shido oo maxaan ku raacay farax gelin ilaahay dartiis ayadoo loo yeelayo iyo dariskaaga iyo waajibaadka ilaahayna saaray anagoo gudaynana hadii aad yiraahdo waxaan leeyahay walaalayaal awal iyo aakhir iskaashi dadka Soomaaliyeed ha iskaashadaan markay dhibaato jirtana ha iskaashadaan markii ay wanaag iyo nimco iyo barwaaqo lagu jirana ha iskaashadaan